بقرآني فيشرق الصبح ضحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بإمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق الصبح ضحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي الأعزاء درسينا اللباد تفسير القرآن الكريم كعاوة وحن كبلا بدون سورة العصر سورة العصر بالله يرهضايو وحي ككوبان تاي صدح آيادود وسورة كوبان معنى بلارنا حنبارسن oo culimadii islaamka si fiican quraanka uga sharaabtay waxay oran jireen quraanka wacdi iyo waaniyo wax sheeg hadii suuratul asr kaliya lagu dayn laha la kafatil muslimiinta iyadaaba ugu filaan lahayd wacdi iyo wax sheeg iyo waano suuratul asr waxay ku bilaabaysaa dhaar waxaana ilaahay ku dhaaranaya zamanka iyo xilliga bini'aadmigu ay nool yihiin goortu doonaba ha noqde waxaana ilaahay ugu dhaaranayaa in la ina dareensiiyo qiimaha waqtigu leeyahay iyo sida islaamku uu u qadarinayo zamanka iyo waqtiga iyo xilliga uu u qadarinayo waxa kale ay suuradu tilmaamaysaa bini'aadmigu dhammaantii inuu khasaare ku jiro haddii aan afarta mas'ale ee soo socdo bini'aadmigu aanay shaqo ka dhiganin qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa العصر زبنك يحل كان كدارنيا أما أقسم وحن كدارنيا العصر صلاة عصر صلاة الوسطى الله يراهدو إيش أنت الصلاة أقو عليسك بدن أقو قيمها بدن بان كدارنيا دار تحدي قال وحن أقو دارنيا إن ندين درنسية بإلهي إن الإنسان إنسان كي بشركو لو والله بان كدارته وعزتي وجلالي بان كدارته في خسر insaanku waxay ku dhex jiraan khasaare noloshoodiina kamay faa'iidin oo zabankii xilligay noolaayeen kamay faa'iidaysanin bini'aadmigu dhammaantii cimrigiisii khasaaru ku intihooday bini'aadmiga fii khusrin jinsil insaan oo dhan khasaare ayuu ka dhaansaday adduunyada intuu ku noolaa ilaa marka laga reebo aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey waa kow وعملوا الصالحات عمل ونكسن أن أذكر راعين الله يماده وتواصوا يصدر دارمه بالحق هل كحق يوناج يصدر دارمه وتواصوا يصدر دارمه بالصبر إن لا صبره الدنيا وهدمية دبعة بدن باكب وحده إن لو دلقات حق يشيجتان كيسة وحيد بكاسو جاره أفرتها مثلاً إنك شقة كدكتا الدنيا الليبان بكله ويادية لكن انت وحن سد كلها هيني عمرجي إلى هي سيك ما وسن فائدة سن خسارة أيوب وجه وينيا الدنيا ده سورة التكاثر سورة التكاثر بالله يرهضا آياته دون واسديد آيادات وحين كم تهي سورة ده مكة كسودجي وحي آيادني إنه قد تصالين دونتا بنا آدميجو إنه دن لاو أبدن يهي
oo waxaan faa'iida ugu jirin wakhtigiisa uu ku luminayo taana la iskaga daba iman doono qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaaheen wuxuu yidhi alhaakum waxaa dantiinnii idinka mashquuliyey alhaakum waxaa dantiinnii idinka lumiyey attakaahuru faan iyo tookh aan faa'iida idinku jirin baa dantiinnii ku ilowdeen baa ilaahay yidhi takaahur maxaa la yidhaahdaa waa iyadoo la isugu faano anaa kaa caruur badan anigaa kaa lacag badan anigaa kaa geel badan anigaa kaa tol badan taasna wax allaaliya wax manfacahoo kaa soo gelaysa majlis kastabana intaasunbaa ku haysaan baa ilaahay yidhi in laysu cudud sheegto laysu fara sheegto laysu abiyo aabbo sheegto intaasaa cimrigiinnii ku lumiseen danina idinkuma jirto alhaakum waxaa dantiinnii idinka halleeyey attakaahuru inaa isu tookdaan oo isu badsataan oo aad tidhaahdaan anigaa kaa tol badan oo anigaa kaa fara badan faanku wuu idinla durki doonaa xataa ilaa oo zurtum aad ka booqataan almaqaabira ilaa aad qabriyada xaddaa ka booqataan maxaa looga jeedaa laba macnoba culimmadu way yidhaahdeenoo faanku intuu idinla fido ayaa dadka qubuurahana isu tirsan doontaan annaga hebeloo abwaanaa naga dhashay wuu dhintay idinkaiyo abwaanadiinniyaa ka mid ah hebeloo maxaanku idhaha milyaneera baa naga dhashay wuu dhintay waa la tirsanaya faanka iyo tookhu wuxuu idin gaadhsiin doonaa dadka qubuuraha ku lafoobay inaad tirsataanoo isugu faantaan macno kalena way leedahayoo faankaas ma dayn doontaan kana waantoobi maysaan xataa ilaa oo zurtum aad ka soo booqataan almaqaabira qabriyaalka intaad nafta kala harbaysaan ee dhimanaysaan tookhaasunbaa ku jiri doontaan fadhi ku-dirirkaasunbaa wadaysaan ilaa geeridu idinka oo fadhi ku-dirirkaa wadnaha la ydin qabto dabadeedna aad ka hulleeshaan ilaa intaad dhimanaysaan wax aan dani idinku jirin adduun iyo aakhiraba baa cimrigiinnii ku lumiseen kalla sidaa ma ahan sababtii la idiin abuuray ee caqliga la idiin siiyey insaanka la idinka dhigay tookhiya faan ma ahan sawfa taclamuun saban dhow baa taa ka garaabi doontaan saban dhow baa ogaan doontaan maqsadkii iyo ujeeddada la idiin abuuray faan inaanay ahayn waa goorma markaa qabriga gashaan ee cadaabulqabriga la idinku bilaabo goortaasaa caqli yeelan doontaan uma kalla aan ku celiya ee haddana ahaan mayso sidaa moodeen sawfa taclamuuna saban aan dheerayn ayaad ka garaabi doontaan ood ogaan doontaan inaanu faankaasi macno samaynayn waa marka aakhiro la yimaadiyo qiyaamaha labada jeer ee ilaahay inoogu goodeeyaa waa laba xaaladood oo culus oo bini'aadmiga sugaya mar waa marka caalam albarsakh qofka la geeyey qabriga uu galo xaaladda adag ee uu la kulmi doono markaasuu baraarugi doonaayo uu garan doonaa cimrigiisu inuu danla'aan ku dhammaaday mar labaadna marka qiyaamaha la yimaadee nin waliba wuxuu kasbaday uu ictifaacsanayo faankii iyo wixii la isugu faanayey markay habaa'an mansuuran noqdeen markaasuu farta dhexda ka qadini doonaa intaan qoomama imanin ka jooga faankuna idin anfici maayo danihiinna ka raacda kalla ahaan mayse sidaa u waddaan low taclamuuna inuun haddaa garasho leedihiin cilmalyaqiini cilmi aad iyo aad loo baadhay cilmi baadhis run ah haddaad samaysaan maa facaltum haada sidan aad ku socotaan ma idinaan samayseen haddaad arrimaha aad iyo aad u faaqidaan oo cilmi yaqiinahoo cilmi baadhis dhaba haddaad noloshiinna iyo wixii faa'iide iyo khasaare idin la'aa kala axadhaan oo kala saandhaysaan alla ilaahay inaydinaan faankaa noloshiinna ku dhammayseen baa ilaahay aan idinka warramo la tarawunna lawallaahi baan ku dhaartaye laamtaa dhaara tarawunna waxaa arki doontaan dadow aljaxiima war naar jaxiima la yidhaah baa idin sugaysa faankuna hadhow waxba idinka tari maayo uma aan idinku celiye la tarawunna lawallaahi baan ku dhaartee bini'aadmi tarawunnahaa waad arki doontaan haa oo jaxiima a baad arki doontaan cayna alyaqiin ishan idinku taalla aragti oo yaqiina baa ku arki doontaan iminka waa la idinka sheekaynoo wacdigu wuu idinka warramayaa indhihaa idinku yaallaad jaxiimo ku arki doontaan hadhow uma dabadeed markaad jaxiimo aragtaanee salbabakdaanee naxdaanee argagaxdaan latus'alunna waa la idin su'aali doonaa yowma idin maalintaa aakhiro la isugu yimaado can innaciimi intii deeq ilaahay idin siiyey oo dhan ka sheekeeyaa la idin odhan nicmadii indhaha
nicmadii carabka nicmadii caafimaadka nicmadii maalka nicmadii awlaadda nicmo oo dhan wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha war nicmadan la iska fantookhayay aad iska cunaysaanuun xisaab la'aan ahaan mayso waa la idinla xisaabtamayaa maa dantiinna garataan suuratu lqaarica suuraddan suuratu lqaarica ayaa la yidhaahdaa waxay ka bilaamaysaa maalinta qiyaame iyo ilaa bini aadmigu labada fariiqo u kala baxayaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir waa ayaamaha ina sugaya ee hawlkiiyo dhibaatada badan la iman doona bay ka mid tahay waxaana lagu bilaabayaa magacyada maalinta qiyaame ka mid ah waxaanay ka kooban tahay suuraddani 11 aayadood waxayna ka mid tahay suuradihii maka ku soo degay qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alqaaricatu tii tumaysay ee garaacaysay malqaaricatu tan wax tumaysaa maxay tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey ruux yahow malqaaricatu tan wax garaacaysee wadnaha iyo qalbiga dhaawaca u geysanaysaa waxay tahay maxaad ka taqaaniin qalbigay garaaci doontaa walwal iyo walaac ayay ku ridi doontaa waa miyir doorsoomi doontaan markuu qiyaamuhu oogsado qalbigay raad ku yeelan doontaa yowma waa maalin yakuunu nnaasu aadamuhu noqon doonaan kalfaraashi sidii baalaley oo kale balanbaalis oo kale almabhuuhi oo la kala eryey faraash waxaa la yidhaahdaa waa balanbaalista almabhuuhi oo la kala firdhiyey maxaa lagu shabbahayaa waxaa lagaga shabbahayaa bini aadmigiiyo baalalaydu halka iska matali doonaan marka balanbaalistu ay meel ku xoonsan tahay oo aad ku soo dhex dhacdo way kala firdhaan midba gees bay u ordaan dhinac keliya uma wada ordaan aadamuhuna maalin bay miir doorsoomi doonaanoo markay qabuurta ka soo baxaan ayaa mid waliba jihada uu u jeedunbuu u ordayaa markaasaa laysdhex ugaami doonaa mid baa xaggan u ordaya midna xagga kale u ordayaa kaljaraadina ilaahay waa ka maelay sidii ayax oo kale labada maalo maxay markaa iska caawinayaan jaraadkana waxaa laga maalayaa farabadnaanta sida koronkorada oo kale ayaa isu dulbixi doontaan xagga maxaanku dhaha dayowga iyo maxaanku dhaha orodkana midba jiho ayuu u ordayaayoo la isdhex ugaami doonaa maalinta qalbiga dhaawacaysa ee garaacaysa ee nabaraynaysa yowma maalin weeyaan yakuunu nnaasu dadku ahaan doonaan kalfaraashi sidii balanbaalistoo kale almabhuuhi ee la kala firdhiyey maalinta qiyaame ma bini aadmigoo keliyay raad ku reebi doontaa ma hadho reeba maya wa takuunu waxay doontaa aljibaalu buuraha waaweyn ee dhaaban ayaa waxaa arki doontaan iyagoo noqday kalcihni sidii suufka oo kale almanfuushi oo weliba la tumay oo marka maalan haddii alle cudbida markii laga samaysan jiray furaashyada ee muddo lagu hurdo way isqabsataa dabadeedna inta marada laga furaa bannaanka la dhigi jirayoo markaasaa ul lala dhaca way kala furfurataa way fududaataa dabayl yaray hadday timaaddo way biddaa marka sidii cudbidii oo kale ee weliba la kala saarsaaroon ishaysanin oo kaley buuruhu noqon doonaan oo waxay noqon doonaan siiga buftidhi oo kale wa takuunu maalinta qiyaamo waxay ahaan doontaa aljibaalu buuruhuna kalcihni sidii cudbida oo kale almanfuushi oo la kala saarsaaray cudbi aan ishaysanin sidaanay dabaysha ugu adkaysanayn oo kaley noqon doonaan haddaba fa ammaa man haqulat mawaasiinuhu marka xaaladdaasi ay dhacdo dadku labuunbay u kala qaybsami doonaan fa ammaa man haddaan kaaga warramo fa ammaa man ruuxii bay noqotay manka oo haqulat ay cuslaatay mawaasiinuhu ay mawaasiina xasanaatihi khayrkii uu soo shaqaystay ninkuu xoog badto ruuxa uu khayrkiisii xoog batay miyaa fa huwa ruuxaasi fii ciishatin nolol buu geli doonaa raadiyatin nolol raalli ahoo mabsuud ah ayuu geli doonaa nolol aan wax allaaliyo wax murugo a lahayn ayuu gaadhi doonaa wa ammaa man ruuxii bay noqotay khafat ay fududaatay
mawaasiinuhu miisaanyaalkiisii khayrku axadkay maalintaa fududaadaan ee isagu daraygaa isdhiga hee fa ummuhu hooyadiisa laabta gashan doonta haawiyatun waa naarta lagu hoobto naarta lagu hoobto ayaa hooyo u noqon doonta oo bogga gashan doonta wamaa adraaka maxaad ka taqaanaa maa shay allaaliya shaygii hiya iyadu ay tahay haawiyaanku idhiye waxay tahay maxaad ka taqaanaa haawiya naarun waa naar ilaah uumayoo xaamiyatun aad iyo aad loo kululeeyey weeyaan suuratu alcaadiyaat suuraddan suuratu alcaadiyaat baa la yidhaahdaa caadiyaatna waa kuwii ordee fadlinayabaa looga jeedaa suuraddan suuratu alcaadiyaat makiya weeyaanoo makay ku soo degtay cahdigii makay soo degtay aayadaheeduna waa 11 aayadood suuraddu dhaar bay ku bilaabanaysaa waxaana lagu dhaaranayaa aaladda iyo saanadda iyo qalabka dagaalka oo loogu horraysiinaya faraska wakhtigii zamankii nebiga waxaa lagu aad baa loo ixtiraami jiray dagaaladana sad weyn buu ka ahaa ilaa iyo aakhiro inta adduunyadu joogto oo dhanna faraska khayr baa laga helaa sida rasuulku sheegay alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayr ilaa yowmi alqiyaama fardaha foodooda khayr baa ku guntan ilaa maalinta qiyaamo laga gaadhayo muslim dhammaantii waa laga dabargooyey faraska laakiin gaaladu ilaa iyo hadda tartankeedii iyo carbintiisii iyo ka shaqayntiisii gacantay ku hayaanoo xataa waxaa lagu qaataa jaa'isado waxay og yihiin in maalin uun ijiinka iyo makiinaddu istaagi doonto sabab keentaba hadhowna ay ku noqon doonto kullu shayin yarjicu ilaa aslihi marka ilaahay wuxuu ina dareensiinayaa inaynaan fardaha dayicin waa aalad aan laga maarmi karin waana aalad xataa maanta oo adduunyadu ay ilbaxday fardaha loogama maarmo sahankiiyo dagaalada meelaha cidhiidhiga ah ee aanay baabuurtu mari karayn waxa lagu sahamiyaa waa fardaha xataa caalamka maanta horu maray kama maarmaan inay fardaha ay carbistaan si ay meelaha adag ee cidhiidhiga ah ay ugu sahan maraan qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa uqsimu waan dhaaranaya alcaadiyaati kuwa fadlinaya dabxan yadbaxuuna iyaga oo gurxamaya dabxan gurxan farasku markuu aad iyo aad u xawaaraynayo ee fadlinayo ee uu cabbaar ordo sanbabadiisu naqas weyn bay tuuraan markaasuu aad iyo aad u gurxama markuu afar qaadaynayo ee uu maxaanku dhaha afarta adin israacinayo wuu gurxamaa waana xaaladda ninka faariska ah ee fardafuulkiihi uu dabaysha kaga gabbado saynta faraska ee uu isla gaabiyo faraska ee uu ku dhego faraska ee faraskuna si laxaadle uu u ordayo walcaadiyaati kuwa xawaaraynaya ee fadlinaaya ayaan ku dhaartay yadbaxuuna dabxa iyaga oo aad iyo aad u gurxamayo laabta ka reemaya waa faraskii falmuuriyaati waa isla fardihiiya u fiirso falmuuriyaati kuwa shidaya baan ku dhaartay qadxan waqalka shidaya ama dhimbiilaha hurinayaan ku dhaartay oo farduhu markay ordayaan ay meel buur ah ku yimaadaan markay qoobka ku dhuftaan dhagax shiileedka dhagaxaas hilaac baa ka booda bilig buu odhanayaa markuu dhagax ku dhufto adinka dhagaxu markuu duulo dhagax kale ku dhaco labadaa dhagaxee isku dhacay hilaac bay bixiyaan qadxiguna waa kaas oo waa dabka falmuuriyaati kuwa hurinaya ee shidaya oo fardaha ah ee qadxan dhimbiilaha daadinaya markay fadlinayaanay buurta ordayaan ayaan ku dhaartay habeennimo markay buur ku yimaadaan farduhuna ay badan yihiin buurta oo dhani way hilaacaysaa qoobkoodaasay la dhacayaan dhagxaanta markaasay biligtaa yeedhaysa marka ay habeenkiibaa haaliban fardaha lagu duulimaad gala sabab waxaa habeenkii inta badan loo gudiyaa waa cadowga lagu socdaa si aanay uurada iyo boodhka ay kicinayaan iyo leexada ay samada ku shareerayaan inaan la arkin baa la rabaa oo cadowga aanu ka sii tabaabulshaysan habeen baa la gudiyaa habeenkaasaa markaa
qoobku markuu dhulka la dhacayaan iyo dhagxaanta ayaa dhimbiila ka duulayaan falmuuriyaati kuwa hurinaya baan ku dhaartay qadxan dhimbiilaha kuwa daadiyaan ku dhaartay hurinaya falmugiiraati kuwa weeraraan ku dhaartay alcaduwa cadowga weerara subxan hiirta waa beri oo cadowgii oo iska baraadla ayaa aroorta hore marka nin iyo geed la kala gartaa la muquursadaa falmugiiraati kuwa weerarka shidaan ku dhaartay subxan alcaduwa cadowga weerara subxan hiirta waa beri faaharna goortay dagaalka bilaabaanna faaharna ee kiciya bihi ay biligaarati duulimaadkaana ku sameeya naqcan boodh iyo uuro ku kicinaya oo marka faraska lagu dagaalamayo isagoo xawaaro ku ordayaa marba xakamaha lagu giijiyaa markaasuu bireegga isugu qabtaa goortaasaa meel allaale meeshuu labada qoob ama afarta qoob dhigo baabaha yacni uu ka boodaa uuro iyo boodh baa samada isku shareera dagaalka ileen faraskii la sii dayn maayo hortaa bannaan uma ordaye marba karan wafaran waa rogaal celin markaasaa marba geesigan dagaalyahankee faraska fuushan marba xakamuhu ku giijinaya markaasuu socodka soo gaabinaya faaharna fardihii dagaalka galay oo faaharna kiciyey bihi ay biligaarati dagaalka dartii naqcan uuro iyo boodh kuwa kiciyey baan ku dhaartay boodhkii markay kiciyaan fawasadna ku dhex galay bihi boodhkii iyagoo isku qarinaya jamcan guutadii dagaalka ay kula socdeen markuu boodhka kiciyo ayuu boodhkii faraskii iyo maxaanku idhaahdaa faariskiiba qarinaya cadowgii oo aan arkayn buu markaa dhex gelaya waa xaalad dagaal oo cakirantay oo cilis iyo weerar la isugu jiro qiiqii iyo boodhkii kacay baa lagu dhuumanayaa markaasaa cadowgii la dhex gelaya fardaha sidaa yeela baan ku dhaartay dhaartu maxay u socotaa ina alinsaana insaanku sidiisaba lirabbihi allihii uumay lakanuudun abaallaawuu ku noqday insaanku xamdigii iyo abaalniqii laga rabay may garanin jinsiga insaankee ilaah karaameeyey ilaahay siduu u karaameeyey abaalkeedii kamay soo bixin kanuud abaallaawo bisadnikaarada weeye waa dhaartan saddexdaasi waxay daaran tahay in la ina dareensiiyo halkii la inaga rabay iyo heerkii la inagu waday midna inaynaan gaadhsiinin ilaahay mahadniqiisii ina alinsaana bini'aadmigii lirabbihi rabbigiisa lakanuudun abaallaawe ayuu ku noqday wa innahu isagan bini'aadmiga ahi calaa daalika masaladaa lafteeda abaalla'aanta ah lawallaahi baan ku dhaartay shahiidun isagaan maragu haystaa inuu bini'aadmigu aanu ka soo bixin abaalkii lagu lahaa mahadniqiisa bini'aadmigaa iga maraga baa ilaahay yidhi wa innahu isla markaa isagoo abaalkii horeo ku maqan gaday oo mahadniqiisii laga la'yahay wa innahu haddana isagu oo insaanka loo jeedo lixubbilkhayri inuu khayr helo ayuu jacaylka uu khayrka jecel yahay iyo maalka la shadiidun alla ku daranaa isagoo kii horeba aan laga hayn mahadniqiisii ayuu haddana hal min masiid buu odhanayaa yaa kordhiyadaasunbuu wadaa abaalkii horena wuu lumiyey afalaa yaclamu waa iga su'aale miyaanu ka warhaynin axadka sidaa u dhaqmayaa idaa goorta buchira la carrarogo maa fi lqubuuri qabriyada wixii ku jira maalin la carrarogi doono oo qubuurta inta hoose dusha lasoo marin doono miyaanay ogeyn inay iman doonto albuchir bachara wuu carrarogay afalaa yaclamu armiyaanu ka warhaynin bini'aadmigu idaa buchira goorta la carrarogo maa fi lqubuuri wixii qabriyada ku jiray oo dhan xaalad sidaasa miyaanu ku xisaabtamin waxusila ee lasoo goobjoojiyo maa fi suduuri wixii laabta ku qarsoonaana bannaanka lasoo xaasiliyoo la keeno hebelow sidaa ma ahayd oo sidaa ma ahayd oo wax walba bannaanka la keeni doono inay jirto miyaanu ka warhayn inna rabbahum bini'aadmiga rabbigiisu bihim
bini aadmiga laftiisa yowma-idin maalintaa la khabiirun isagaa xogogaalkiisa oho axad bini aadmiyo cid kale u warsanayaa ma jira ruux waliba wixii uu kasbaday rabbi baa ku caalima suuratu zilzilat suuraddan suuratu zulzilat baa la yidhaa aayadaheeduna waa 8 aayadood waxayna ka mid tahay suuradaha ku soo degay maka waxay tilmaan aad u xeel dheer ka bixin doontaa maalinta qiyaame iyo adduunyadu sida ay isu bedeli doonto ee iimaanka iyo quluubta bini aadmiga u wareerin doonto ee axad waliba dhabannada iyo ay isa saari doonaan shanta dhaban iyo dhafoorka oo nin waliba uu leeyahay sidani maxay tahay isbeddelka sidani muxuu yahay aad loo amakaagi doono ayuu ilaahay ka warramaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi idaa goorta zulzilad la lulo ee la ruxo alardu marka dhulka la ruxo zilzaalaha ruxitaankii loo qorsheeyey sidanuun adduunyadu habadka iyo hayinka u ahaan mayso sidanuun ugu daaqi maysaan oo ilaahay ugu dulcaasin maysaan waxaa lala maagan yahay maalin uun in ilaahay dhulka gariiriyo dhammaantiiba idaa goorta zulzilad la ruxo alardu dhulka marka la ruxo oo la goolaabo zilzaalaha ruxitaankiiyo goolaabkeeda marka la sameeyo wa akhrajat marka la goolaabo waxay soo saari doontaa alardu dhulku wuxuu soo saarayaa afqaalaha wixii culays ay qarinaysay oo dhan bay bannaanka u soo saari doontaa haddii bakti ku jiray way soo saariyo oo nool hadday maxaanku dhaha dahab iyo dheeman iyo fido wixii macdan ku jiray oo dhanna bannaankay u soo xoori doontaa markay wax allaaliya wixii gudaheeda ku jiray ay soo ballaqdo goortaa waqaala dabeedna uu yidhaahdo al-insaanu bini aadmigu ay yidhaahdaan maa ayu shay-in maxay baa laha adduunyadii iyo dhulkii maanta waa maxay maxaa u sugnaaday armaanta adduunyadii waxaanay samaynaysaa waa maxay baa la odhan doonaa yowma-idin maalinta yaabkaa leh tuxadiثu waxay ka warrami doontaa arladu akhbaaraha wixii war ku duubnaaya oo dhan ayay sheegi doontaa wax allaaliya wixii arladan dusheeda lagu sameeyey ayay ka warrami doontaa saacad daqiiqad camal shar iyo khayr ayadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hadashiin doonaa qof walba khayr iyo shar wuxuu arladan guudkeeda ku sameeyey ayay uga warrami doontaa waa rikoodhina hoos yaalla adduunyadan aan arkaynaa halkaa aad ku sujuudday way ka warramaysaa halkaad ilaahay ku caabudday way kaaga warrami halkaad ku haasawdana waa kaaga warramaysaa nin baa beri Hargeysa joogi jirayoo qasaa'id buu tirin jiray wuxuu odhan jiray kuwaa dhacaya isla dhuumanayo dhulkuba waydin sheegi doonaa qor calayka allaahu sallama yaa muxamed ibnu cabdillaah ayaa ku jirtay maxaanku dhaha qasaa'idkiisa kuwaa dhacaya isla dhuumanayo dhulkuba waydin sheegi doonaa markaa dhulkanaa warrami doona moobilkan soo ma aragtaan masamaduu ka soo degay dhulkunbaa laga soo saaray aaladahan iminkayna duubaya ee wax walba ka warhaya tanunbaa ilaahay isku rakibaya bayteriga dhulkaa laga soo saaray jibkan yar dhulkaa laga soo saaray qalabkan yaroo dhan dhulkaa laga soo saaray bini aadmi baa sameeyey fa kayfa saanic allihii sameeyey unkana ka warrama maxaa u malaynaysaa si wuxuu la yaab leh ayuu uga warramay iminka haddii maalan masaajidkan la baktiyo leydhkiisa oo aan telefoonkan ku hadlo ay madow tahay shirkadda uu u sheegaya inta daqiiqan hadlaya soo maha meel madow ah haddana sabadaan ku hadlaya iftiin uma baahna leydh uma baahna moobilkani bini aadmi baana sameeyey markuu ilaahay damco inuu ku daba dhigto ilaahay kuma cuslo tabaaraka wa tacaala yowma-idin maalinta qiyaamuhu ogsado tuxadiثu way ka sheekayn dhulku akhbaaraha waxay shaqaha yacni war haysay oo dhan maxaa sababa bianna rabbaka sababtuna waxay tahay rabbigaagaa awxaa amray lahaa iyada dhul yahow warran wixii aad duubtay sheeg baa la odhan doonaa yowma-idin maalinta yasduru nnaasu dadku way fulayaan oo way soo dareerayaan ashtaatan iyagoo jamaaca koox assuduur waa marka maalan ceelka laga soo xoolaha lasoo waraabiyay soo fulaan af carabiga suduur ayaa la yidhaahdaa
marka ay haraadan yihiin ay sii aroorayaan wuruud baa la yidhaahdaa fa awradahum annaaru wa bi'sa alwirdu almawruud marka camalkii adduunka waan dhammaynay wixii aynu kasbannoo dhan waan shaqaysanay hadda waa la soo fulay xaggii aakhiriya abaalmarintii waxa camalkeennii waxaynu kasbannoo dhan waan shaqaysanay ashtaatan ay firaqan wa jamaacaatin dadka oo koox kooxa ayaa soo bixi doona intii shimbirba shimbirkiisuu la duuli doona intii ku calaamadsanayd zinada ahla zina dhan bay isu raaci doonaan intii qaatilu nafsiga xaqdarrada wax ku diltay dhinac bay isu raaci doonaan shawaaribu lkhamri dhinac bay isu raaci doonaan kuwii habeenkii salaatuleylka u kici jiray dhinac bay isu raaci doonaan kuwii soomka badnaa waxaa laga dhigayaa guuto gaar ah jamaacaad bay dadku isu soo raaci doonaan baa ilaah yidhi tabaaraka wa tacaala maxaa loo wadaayee loo soo fuliyey maxaa loo soo dareeriyey liyuraw inay arkaan darteed acmaalahum nin waliba wuxuu tabcaday ayaa la tusi doonaa haddaba faman yacmal ninkii tabcaday midqaala daratin atam in la eg oo culays ah ninkii shaqaystay oo shayga ugu yar adduunyada culayskiisa in la egoo khayra ninkii shaqaystay yarahu wuu arki doonaa waman yacmal ninkii kasbaday midqaala daratin atam in la eg ama shay dhuuri casa ah in la eg oo culays ah oo shaqaystay sharan shar ah yarahu wuu arki doonaa suuratu lbayina suuraddan suuratu lbayina la yidhaahdaa waa burhaan iyo caddayn bay ka wadaa suuratu lbayina aayadaheedu waa 8 aayadood waxayna ka mid tahay suuradaha madaniga ah weeyaan suuraddani suuratu lbayina waa madani weeye suuratu lbayina 3 masalay daahfuri doontaa waxay marka hore ka warrami doontaa markay diinta islaamku timi dad badan inay intifaacsadeen oo markii hore mugdi iyo dalaal ku jiray oo ama diin qaldan nasaaradii iyo yahuuddii iyo nimankii mushrikiinta ahaa in badanoo ka mid ihi inay ka fuqeen baatilkii iyo maxaanku idhaahdaa shirkigii mar labaad waxay suuraddu tilmaamaysaa ikhlaaska waxa la yidhaahdo oo aasaaska diinta ah ama camalkaaga waxa gundhiga u noqonaya way ka warrami doontaa waxaa kale ka warrami doontaa labada qoys ee adduunyadan ku nool ahlu sharki iyo ahlu khayrka iyo halkay ku intihoon doonaan 3daa masalo ayay suuraddu tilmaamaysaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi lam yakun muu ahaanin aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo min ahlilkitaabi aan ku caddaynaya ahlu kitaabka kuwii kutubta hore haystay oo yahuud iyo nasaariihi qaar ka midii may noqon iyo walmushrikiina iyo kuwii maxaanku idha asnaamta caabudaya labadaa qoysba may noqonin munfakiina kuwa ka fuqa baatilkii iyo macaasidii iyo shirkigii iyo gaalnimadii kamay hadhin xataa ta'tiyahum ilaa ay uga timi albayinatu markay burhaantii iyo caddayntii u timid bay ka hadheenoo ka joogsadeenoo xaqii bay raaceen burhaantan iyo bayinada maxaa looga jeedaa wuxuu yidhi ilaahay lam yakun muu ahaanin aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ahaa maxay ku gaaloobeen yahuudi waxay tidhi cusayr baa ina ilaahay ah waxa kalooy ku gaaloobeen nebi ciise ayay dafireen oo yidhaaheen rasuul ilaahayba ma ahan nasaarana way kufridayoo nebi ciise yidhaahdeen waa ina ilaahay labaduba gaalay noqdeen haddana diin bay sheeganayeen markii uu bayinadii iyo xaqu yimi in badan baa caqiidadii sidaa ahayd ka fuqday mushrikiintuna gaalay ahaayeen maxay gaalo ku ahaayeen sanan bay caabudayeen in badanoo mushrikiintii ka mida markay bayinadii iyo deliilkii yimi xaqii cadda way ka fuqeen shirkigii iyo gaalnimadii haddaba bayinadan timid wa'ayo rasuulun rasuul markuu yimi min allaahi xagga ilaahay laga soo diray rasuulkaasoo yatlu aqriyaya suxufan wuxuu akhriyaya suxuf iyo waraaqu akhriyaya mutaharatan la daahir yeelay oo been iyo fasahaad iyo xumaan aan lagu arki karin oo daahir ka ah ayuu ku dul aqriyey isagoo qalbiga ilaahay kaga daabacay suxufta qalbigiisaa ilaahay saxaayif ka dhigay qalbigiisaa diiwaankii qur'aanku ku qora
kaasuu ka aqriyayey nebigu qur'aankoo dadka u aqriyayey fiihaa suxuftaa uu qalbiga ka yeedhinayo fiihaa dhexdeeda waxaa ku qoraa kutubun waajibaad qayimatun qumman waajib sax ah oo qummanoo la intifaacsado ayaa ku qoraa wamaa tafaraqa may kala dhaqaaqinoo ismay khilaafin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka hore kuwii haystay ismay khilaafin ilaa marka la soo gaadho min bacdi kadib maa muddadii jaa'athum ay u timid albayinatu maalintii bayinada u timi ayaa gaala kala dhaqaaqday oo mushrikiintii kala dhaqaaqeen oo ina rasuulka raacday ina ay gaalnimadoodii ku sii adkaysteen wamaa tafaraqa may kala dhaqaaqin oo may iskhilaafin aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum intay uga timid dabadeed mooyaane albayinatu caddayntii iyo burhaantii alliya rasuulku markuu u yimi ayay kala dhaqaaqeen xasadan min cindi anfusihim waxay ahayd xaqa inay ku midoobaan qaar baa xaasidnimo ma annagaa carabi nebi noo noqota oo qurayshina ay tiraa ma annagaa nin agoonahoo miskiinoo faqiirihi uu nebi noo noqdaa ma diinta lagu soo dejiyo ragga waaweynee hebellada ahee la yaqaano ayay qaarkoodna ku fitnoobeen dadkani maxay ka dideen mushrikiintan gaalnimada ku adkaysatay maxay biyo diideen gaaladan kutubta hore haysatay ee kutubtooda ka sii warrantay nebi moxamed maxay iyaguna ka firdhadeen maxaa la farayey waxaan khayr ahayn lama faray wamaa umiruu lama amraynin dadka ilaa mooyaane liyacbudullaaha inay alla caabudaan xaal mukhlisiina ay u gaar yeelayaan lahu ay lilaahi alle inay u gaar yeelaan unbaa laga rabay addiina ay ilcibaadata wax kale oo dadkan lalahaa sameeya may jirin ilaahay caabuda oo cid kale ha la caabudina u khaas yeela rabbi cibaadada iyo baryada iyo gowraca iyo maxaanku idhaahdaa ilaahay u gaar yeela unbaa lalahaa wamaa umiruu lama amraynin khalqiga ilaa mooyaane liyacbudullaaha inay ilaahay caabudaan unbay ahayd ujeeddada hadalku xaal mukhlisiina ay u gaar yeelayaan lahu ilaahay addiina cibaadada xunafaa'a waxaa lalahaa ka leexda diinta qaldan xunafaa'a xaalaatiin kuwii ka baydhaya diimaha qaldan taasunbaa la farayey wayuqiimuu inay oogaan baa la farayey asalaata salaada ilaahay iyo addoonka isku xidha adkaystun baa lalahaa oo yani ooga wayu'tuu inay bixiyaan unbaa la farayey azakaata dagada inay bixiyaan unbaa laga rabay maalka ilaahay xaq ku yeeshay ee masaakiinta loo waajib yeelee dagada la yidhaahdo iska bixiyayey maalka kale idinka sadhaynin intaasunbaa lalahaa wadaalika arrimahan la amrayeyna diinu lqayim waa diinta quman baa sidaas ina aladiina kafaruu haddaba kuwa gaaloobay ee diintaa quman diiday oo min ahlilkitaabi kitaabka hore haysan jiray walmushrikiina iyo mushrikiinta asnaamtii ku sii adkaystay labadaa reerba fii naari jahannama naarta jahannamo dhexdeeday ku sugnaan khaalidiina fiiha weliba way ku waari doonaan ulaa'ika kuwaasi hum iyagu sharulbariyati sharulkhalaa'iqi albariyatu alkhalaa'iq inta ilaahay uumay ee makhluuqaadka waxa ugu shar badan nin ilaahay ku caasiyo ilaahay ku shirki yeelay haddaad lagu yidhaahdo uunka ilaahay abuuray yaa ugu shar badan nin ilaahay dafiray baa ugu shar badan sharulbariyati makhluuqaadka inta ugu shar badani waa gaal ilaahay ka kufriyey ina aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey wacamiluu saalixaati camal wanaagsanna la yimid ulaa'ika kuwaasi hum iyagu khayrulbariyati makhluuqaadka iyagaa ugu sito ugu khayr badan jazaa'uhum abaalmarintooduna cinda rabbihim ilaahay agtiisay u taallaa jannaatu cadnin aan idiin sii weliba caddeeyo oon si kale idinku dhige abaalka aan ugu haynaabaa ilaahay jannaatu cadnin waa jannooyin aan weligoodba guuraynin jannooyin maguuraan ah ayay heli doonaan tajri ay qulqulayso min taxtiha alanhaaru hoosteeda webiyaal baa mulacyayn doona khaalidiina fiiha way ku waari abidkeed radia allaahu canhum ninka ilaahay rumeeye camal fiican la yimi radia allaahu canhum kuwaa ilaahay raalli buu ka yahay waraduu canhu iyaguna rabbi raalli bay ka noqdeen abaalmarinta uu guddoonsiiyey aad bay uga mabsuudeen daalika
arrinka caynkaasa oo in ilaahay kaa raalli noqdaa adna aad ilaahay ka raalli noqotaa oo jannaati cadni lagu guddoonsiiye ah khayru waxa weeyaan liman khashiya rabbah liman waxa iskale ruux khashiya ka cabsaday rabbahu rabbigii ka cabsaday suuratu lqadar suuraddan suuratu lqadar baa la yidhaha waa shay la qiimeeyey bay tilmaamaysaa wax qiimo badan leh ayay tilmaamaysaa waxayna ka mid tahay suuradaha maka ku soo degay waana 5 aayadood markii cimriga ummadda muslimkii uu yaraaday ee 60 ilaa 70 intooda badan uu dhaafi waayey ummadihii horena ay kun sano iyo dheeraad noolaan jireen arrinkaas waxaa aad uga ashkatooday nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam allahayow aakhirana waa la tartamaya falyatanaafis ilmutanaafisuun baad ilaahow tidhi allahayow ummaddaydii cimrigeedii way gaaban tahay ummadihii horena cumrigeedu wuu dheeraa nin 1,000 sannadood ku caabudayay iyo nin 80 sano ku caabudayey isma gaadhi karaan allahayow sideen yaalaa ilan hadhowna waa la isu faanaya aakhiro ambiyaduna xataa way maxaanku dhahda way tartamayaan codsigaa uu nebiyullaahi moxamed ilaahay hortii uu inoo sameeyey baa rabbigeen wuxuu ina siiyey fii kulli sana sanadkii walba hal habeen buu inoogu daray halkaa habeen oo 1,000 bilood ka khayr badan waa habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo ee sha'nigiiyo arrinkiisu wen yahay waana bisha ramadaan dhexdeeduu ku jira 10ka ugu dambeeyaa loo fila maalmaha isdheer 10ka u dambeeyaa weliba loo sii fila qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa annagu anzalnaa waxaan soo dejinnay hu oo qur'aanka ah qur'aankan maanta aynu akhriyaynan ku doogsanayna qalbigeennu wuxuu soo degay fii leylati alqadri habeen sha'ni weyn leh habeen qiimo badan leh ayuu soo degay wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa leylatu lqadri wuxuu yahay habeenka qadarka iyo sha'niga lihi leylatu lqadri habeenka leylatulqadriga laydhaa ilaahay sha'niga iyo qiimaha siiyey khayrun wuxuu ka sitaa oo ka khayr badan yahay min 1000 shahrin 1,000 bilood ayuu ka khayr badan yahay tanazzalu lmalaa'ikatu habeenkaa malaa'igahaa soo dega malaa'ig baas dhulka u soo daadegta waruuxu ruuxuna wuu soo degaa ruuxa maanta waxaa laga wadaa waa malakuljibriil malaa'igta iyo boqorkeeduba wuu soo degaayo malakuljibriil baa malaa'igaha oo dhan yacni boqor ah way soo degaan fiiha fii haadihi alleyla habeenkaa dhexdiisay soo degaan biidni rabbihim amar eebbe ayay ku soo degaan biidni rabbihim min kulli amrin amar dhammaantiina way la soo degaan oo sanadkaa soo socda wixii acmaal dhici lahayd oo dhanna way loo qaybiyaa malaa'igta kii arsaaqda ilaahay uu u igmaday sanadkaa wixii dhalan doona wixii dhiman doona nin walbaba arsaaqdiisu intay ku intihoon doonto malakulmowdna waa la guddoonsiinayaa sanadkaa gudihiisa inta nafoode uu qabanayo malag walbaaba wuxuu isagu qaabilsan yahay sanadkaasaa loo jumladayaa oo la odhanayaa wakaa sanadkaa intaasaad sidaa u wadaysa oo sanad xidhkaa ayaa loo soo dhiibayaa malaa'igta ay khusayso acmaashaasi tanazzalu lmalaa'ikatu malaa'igtaa soo degaysa waruuxu iyo malakuljibriil baa fiihaa maalintaa habeenkaa dhexdeeda soo degi biidni rabbihim amar ilaahay bay ku soo degayaan min kulli amrin amar kasta oo ilaahay damacsan yahay sanadkaa gudihiisana waa la guddoonsiinayaa salaamun hiya habeenkaasi salaamun waa habeen nabadgelyo waa habeen salaam iyo maxaanku dhaha bogaadin leh oo maa habeenka meelaha lagu cibaadaysanaya mu'miniintu ay ku shamirayaan cibaadada rabbi ayay dhex wareegayaan markaasay odhanayaan salaamun calaykum bay odhanayaan hiya leyladaasi iyo habeenkaasi salaamun waa habeen nabadgelyo xataa maطlaci alfajri nabadgelyadaasaa lala dhex wareegayaa muslimiinta xataa ilaa oo maطlaci alfajri ay cadceeddu ka soo baxayso ilaa waaga berigiisa gabalku markuu dhaco ma habeenkaas ilaa inta cadceeddu ka soo baxaysa salaada subax loo aadimayo intaasaa malaa'igtu dhex wareegaysa suuratu lcalaq suuraddan suuratu lcalaq baa la yidhaahdaa waxay ka mid waa suuradaha maka ku soo degey aayadaheeduna 19 aaya waa 19 aayadood 3 masalo ayay 3 xubnood baynu u qaybin doonaa qaybta hore waa 5 aayadood ee ugu horeeya suuradda waxayna tilmaamayaan oo la yidhaahdaa waa 5tii aayadood ee ugu horreeyey qur'aan soo dega
nabigeenno calayhi salaatu wasalaam godkii qaaru xiro ku jira oo malakul jibriil u yimi waa shantii aayadood ee uu ku bilaabay qur'aankaba masalada labaad ee suuraddu ka hadlaysaana waxaa weeye insaanku sidiisaba nicmada iyo sadada ma xajiyo had iyo jeer haddaad u fiirsatana dadka kibirsan waa dadka ladan weeye inta badan dadka ilaahay uu ladnaysiiyey ee uu u sadbadiyey kuwaasaa ugu qooq badan masalada saddexaadna waxa weeyaan ninkii la odhan jiray abaajahal iyo dagaalkuu diinta la galay iyo nebiyullaahi moxamed qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi iqra' yaa rasuula allahi yaa muxamed akhri nebi moxamedow bismi rabbika rabbigaaga magaciisa adigoo ku bilaabaya magaca rabbigaa adoo ku bilaabaya akhri markaasaa nebigu yidhi wax la ima barin ummi baan ahay markaan anigu uurka hooyaday ka soo dhacay ilaa maantoon 40 jir ahay weligay wax la iima dhigin 3 jeer buu markaa camaajulleeyey oo dabadeedna markii dambe uu yidhi maada aqra maxaan aqriyaa goortaasuu ku yidhi iqra aqri nebi moxamedow bismi rabbika magaca rabbiga adigoo ku bilaabaya alladii allihii magaciisa cusko oo akhri khalaqa uunka oo dhan allaha abuuray khalaqa allaha abuuray si gaara alinsaana dadka min calaqin calaqo ilaaha ka abuuray calaqo waxa weeye maadad yaroo riximka hooyada ku dhegta oo sidaa u soo laalaadsanta oo ay aad iyo aad isu shabbahaan dixiri yar oo calaacul la yidhaahdo oo meelaha biyomareennada iyo ilaha biyaha ah ayay had iyo jeer fadhiisataayoo waxa weeyaan waa dixiri yaroo madow oo af yaroo ballaadhan leh oo had iyo jeer xoolaha markay biyaha cabbayaan bay u raacdaayo cunaha iyo intaasay iska laalaadisaa markaasay dhiigga ka nuugtaa waxa weeyaan markaa dixiri yar baad noqotaan oo sida calaacusha ah markaasuu riximka hooyada ku dhega halkaasuu dhiigga ka nuuga heerkaasaad soo marteen calaqo idinka oo calaacul iyo dixiriga calaacusha la yidhaah shabbihiisa oo kale leh iqra aqri wa rabbuka alakram وربك ربك الأكرم اقرأ أقري القرآن قرآنك أقري النبي محمد وربك ربك الأكرم وإله الديق ضبضان إله الديق ضبضان ويان ربك أخري قرآنك الذي عليه أخري قرآن كيسا علم برب بالقلم سيدا وحلوق إله إنسانك ككرامي حيوانات كي نجد دعدا وين أدون كان إنه سوه الرئي أودن mid wax qora oo taariikh reebaa kuma jiro inta xayawaan adduunyada ku uumana inaga ugu da'yar oo xayawaanaadka oo dhan xataa duqsigana dhaho way naga cimri weeye adduunyada way naga soo horeeyay insaanka aadam baa laga unkayo salaad casar oo jimco ah oo cadceedu sii dhacaysaba isaga la abuuro adduunyadan la keenay waa salaad casar أحد بالله بالله اثنين ثالثة أربعة خميس انت سال لغو ابي اونك او ادل وحا اوغو دعير او غوري دنبيس بنا آدمك إياغانا إلهي كراميي او إياغو كليبا وحا مخلوقاتك أردن كنول يا كوكبكن إياغا يقانا سيدا وحلو قرو تاريخ دا أي كلا دحلين إيا علمك أي سجود بنيان إيا منافع دا أردن قرالكاسي سجود بيان ونعمو آن لكوبي كرين قرالكو إنسان كان إسكاله عد لو وداكتها ما جرتو وحدول كان كنول إلهي إساقا ديق بدن ديق دي سنة وحا كميدا الذي الله هو يعلم برا إنسانك بالقلم إسدا وحلو قرو علم الإنسان دادك وحو برا ما لم يعلم شيء آنو هرأ وقوم بامر والبقى دب يعني هدنا أيو وصو يعني هندي سيان انت إنو النولين أيامها ندو أوكالية إمساطا علمي أن هر الله استعمالي شرين بي مربى هندي سيان علما وحو برا إلهي الإنسان دادك ما لم يعلم وحانو دادك هرأ وأقونين بي مربى هندي سيهي سقارسين أيان كلا انتاسي وشانتي آيادود وانا سورة دبت إسلام كلية ودين العلم ويه ودين إلهي وقلت لك لي أقونت آدمها إنو كرقو قادو كلا أرنكو سيدا أمو دين ما أهان دونه إن الإنسان بنا آدمي بدن كيسو لا يطغى وكبرا لا والله بان كدارتي يطغى وقوقيا وكبريا سنكو تاغيا محا اوغو عن انو كبرو
أن رآه إنه إسأركي استغنى إن أنو عدنا وباهنين إنه إسكافيي بو أمو ذا مركو حوق يشو مالنا أو يشو إن أنو أحد با أباهنين أو كافتومي بو إسكادقي أرنكونا سيدا ما أهانين إن إلى ربك إلهي حقي سوء أهان دونا الرجعة warqooqan iyo kibirkani sidaa ahaan maayo waa la isooga dambayn ilaahay baad u soo noqon doontaa ya caga dhigo intaasina waxa weeyaan bini'aadmiga iyo inuu had iyo jeer ladnaantu aanay anficin baa ilaahay inooga warramaya badankiisa walow basata allaahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa halkan waxaa laga bilaabayaa dagaalkii adkaa oo ninkii abaajahal la odhan jiray uu nebi moxamed iyo diinta ku qaaday maalin maalmaha ka mid ah ayuu quraysh isu soo ururiyey wuu canaantay isagaana oday u ahaa dulli baad tihiin ma inankan yaroo agoonka abaa maalin walba kacbada dhexdeeda wejigiisa halkan ku boodhboodhayn doona salaadda isagoo uga jeeda wallaahi baanan yeelaynin carbal maanta waan joogayaa hadduu yimaado carwalkaasi ha sujuudo dabeedna nebigu intuu soo galay kacbadiibuu salaaddii xidhay waana loo ballamayo waa fagaaro dhan oo la sugayo dabadeedna nebigii salaaddii buu galay calayhi salaatu wasalaam waxaa la haye abaajahal waxaad samayn laha abulxikam bay odhan jireenoo haye wakaa wiilkiiye orada bal waxaad falaysa fal wuu soo dhaqaaqay in yar markuu u jiro ayaa rabbi wuxuu dhexdoodii ka jeexay waraar weyn oo cadaab ah oo olol weyni ka boodayo waxaana arkaya abaajaal wuxuu yidhi dib buu u soo gurtay markaasaa uu soo cararayo wuxuu ku soo noqday jamaacadii war maxaa kugu dhacay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen gacmo isoo haabanayana waan arkayey olol baana dhexdayada ka ogsaday lafahaygaan u baqay markaasuu nebi maxamed wuxuu wallaahi hadduu tallaabo keliya soo qaadi lahaa malaa'igta eebbe ayaa xubin xubin u kala goosan lahayd wuxuuna ka dhirfayey oo diidanaa inuu tukado salaaddaa uu nebi moxamed ilaahay u tukanaya buu diidanaa tii baa ilaahay leeyahay bal waxaa isbarbar dhigtaan nin rabbigii abuuray baan caabudayaa leh iyo nin sanam iyo qori baan caabudayaaloo haddana dagaalamayo kii sanamka caabudaya isla toosan yahay bal ka warrama qaala allahu tabaaraka wa tacaala marka abaajahal adeer buu ugu beegnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaanku dhaha nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba dee qurayshna wuu ahaa fariintan ilaahay uu inoo sheegayo waxay jawaab u noqonaysaa iyo fariintii xalay abulahab aa garanaysaan nebiga adeerkii ruma iyo labadii ninee ilma adeerada ruma ah yacni nebiga u ahaaye hablihiisa ku soo furay waxay jawaab dhabahoo kaafiya u gudbinaysaa kuwa babqaaga ah ee iska hadaaqee yidhaahda diinta islaamku waa diin carbeed war hadday diin carbeed tahay muu intifaacsada abaalahab oo muu intifaacsada abaajahal oo muu intifaacsada abu aalib maxay u intifaacsan waayeen maxay uga hor yimaadeen hadday diin carbeed tahay waa diinu min allahi tabaaraka wa tacaala ara'ayta bal ka warran baa ilaahay yidhi alladii axadka yanhaa maanacaya cabdan addoon buu ka hor taagan yahay oo ka maanacaya idaa sallaa markuu rabbi u tukanayo ara'ayta waxaad iiga warantaa in kaana hadduu yahay axadka laga maanacaya cala alhudaa hadduu isagu toosan yahay bal ka warrama aw amara bitaqwa ama uu dadka alla ka cabsi uun faraya bal ka warrama intaasi ma in laysku colaadiyaaba ara'ayta bal iiga warrama in kadaba hadduu beeniyey kan u dagaalamayo abaajaal diintaba hadduu beeniyey watawallaa oo xaqiina uu ka sii jeestay alam yaclam miyaanu ka warhaynin ninka sidaas samaynaya bianna allaaha yaraa inuu ilaahay arkayo kalla arrinku sidaa ahaan maayo abaajahalow kalla lain lam yantahi lawallaahi baan ku dhaartaye baa ilaahay yidhi in haddii lam yantahi aanu ka waantoobin abaajahal lanasfacan waxaanu jiidi doonnaa binnaasiyati fooddaannu jiidi doonnaa halka foodda timuhu ka baxaan ee madaxa hore ah ayaan si ihaano leh u soo jiidi doonnaa aakhiro naasiyatin food baanu jiidi doonnaa kaadibatin beenaley ah khaati'atin oo gafkeedu badan yahay maalin maalmaha ka mid a ayuu aad iyo aad si dhiif leh ayuu ula hadlay abaajahal nebigoo kacbada taagan markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam
وآد مركا نبينا وجهن شبي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى الله إليه هوك باكوس ناضي markaasuu abaajahal ku yidhi waryahay waad wiil yaroo iska ciyaarayaa tahay aniga maanta yaa iiga xoog badan buuraha maka oo dhan ninka xukumaaso aniga ma wallaahi mar keliya haddaan dhawaaqo in sida haada lagu kala goosan doono hadalkayga waa la maqlaay tiibaa ilaahay uga jawaabayaa goodigii uu nebi maxamed u fuliyey wuxuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala falyadcu ha dalbado abaajahal naadiyahu ururkiisa ha dalbado naadigiisa ha u yeedho سندعو وحانو ضلبان با إلهي الزبانية نار يعني ملائكة نار جهنم كشقيسة الزبانية الليلة بل يساقو ضدكو ضلبان يا أرور كيسا هاد البضية نادي كيسا سندعو أننا وحانو كو ضلبان الزبانية وحانو كو ضلبان ملائكة النار كلا أرنكو سيدا أهان ما يا نبي محمد ونكن يحبك أقري ماي لا تطيعه وركيسا أطيعن واسجد إلهي أسجود أنك كاعلين واقترب إلهينا أدوو أو وحي إلهي كودوينيا لا إمو سورة التين أيا سورة الله يراها وحين كمت سورة ما كسودك آياته دون واسدين وحي إلهي كورميا فضلك إيو وناق أوليا هاي هل كأنه صلاة أولوجيت سنو إيو فضلك أي لا هاي هل كي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحي قال له قسودك يو دور السيناء wuxuu inta markaa ilaahay ka warrami doonaa markuu labada ku dhaarto ayuu ilaahay ka warramayaa bina aadmiga noocan loo abuuray iyo sifadan ay u abuuran yihiin sancadan cid la wadaagta inaanay jirin makhluuqaadka uunka kula nool inagu laba aadin baynu kor u taagnaa makhluuqaadka kalena way afar adin leeyaan qaarna beerka bay ku socdaan marka inay taasuna nicmo weyn tahay qaabkan ilaahay inoo abuuray sara joogani ayaa la ina garwaaqsiinaya قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري والتيني جيت كتينك الله يرابان كل دارتي جيت كتينك الله يرا كنا إنه تينك نرا قد أحد لماها وجيت كلوها إن شاء الله هدي إلهي وفتشيها بين دم عن صوت صدونه وحال يرا هذا أفصل مالك قرعس بالله يرا قرعس وحنكبها أجا عرقابان كو أركي شنبروهم باعنا من انتفاع ستصومالد جيت كقرعس الله يرابان كل دارتي وجيت منفعة بدن oo borotiin iyo yani fitamiin badan uu ku jiro oo lafaha carruurtana wuu koriyaa maskaxdana wuu koriyaa geedka tiinka la yiraahdo qurcista u taqaanin Soomaalida ay baan ku dhaartay wazaytuuni geedka saytuunka la yiraahdo geedkan inagu aynu saytuunka u naqaane midhaha badani gudaha ugu jiraan kaas ma aha ka saytuunka ilaahay u yaqaana kaas af carabiga waxa lagu yiraahdaa jawaafa كان زيتون كينوغا إنه نراهنو عربي وحا لو غدا جوافا زيتون كو waxa weeyaan waxa ku garanaysan saliid seeda taynu niraahno ama saliid zeytuunka dadku ay isku duugaane raashinkana lagu darsaday dukaanada lagu iibiyo saliid seeda la yiraahdo saliid zeytuunka waa mid laga miiro weeyaan oo imika waxaad ka heli kartaa meelahan midalan ay yaani supermarketada way keenaan isaga laftiisa inaan habeen dambe inaan soo qaado waan isku dayi doonaa insha Allah labada geedba والتين وحان كدارتي قرعستا والزيتوني جيدك سليد لغا ميري زيتون كان كدارتي وطوري وحان كدارتي بورتي سينينا بركيسنيد وطور سينا أنا والله يراهدا بورتا بركيسن بان كدارتي ودورتي يا بورتي نبي موسى لوغو سو جتيه توراة تانا وان كدارتي وهذا البلد بلد كنا وان كدارتي يا مقالدا الأميني إلهي أمني سيي ومكة saddexdaasaan ku dhaartay waxay dhaartaasi iiga badan tahay laqad khalaqnal insaana inaan idin garwaaqsiiyo oo ila aragtaan la wallaahi baan ku dhaartay qad khalaqnal insaana bina aadmiga waanu abuurnay fi ahsani taqwiimi joogi iyo taagitaankii ugu qiimaha badnaa baan ku abuuray thumma dabadeedna markaan sidaa u karaameeyey intoodii badnayd karaamadii may qaadan way gaaloobeen thumma dabadeedna radadnaahu waanu celinay أسفل السافلين أسفل السافل كوا هوسية كوا أوجو هوسية يعني كسر دقي أنت اللي ليدو إيه هوسيسا بان أوجو هوسيسية محل جوضا إنهم كالأنعام بل هم أضل السبيلا روحوا مركو ربي أومي جران وايو وحوي وإهانو هل كي وجود بيسي
uma dabadeed markii aan qotomiyey aan caqli iyo garasho siiyey ee uu ilaahay ku garan waayey radadnaahu insaankii waanu celinnay asfala saafiliina kuwa hooseeya ayuu ugu sii hoos maray ila aladiina kuwii mooyaane aladiina kuwaasoo aamanuu ilaahay rumeeyey kuwa iyaga maanaan hoosaysiinin kuwa ilaahay rumeeyey marka laga reebo وعملوا الصالحات عمل وناكسن الليمي فلهم كواسي وحي أكتيد كل يهين أجر أبال بيهلي دونان غير ممنون غير مقطوع أبال أن كلاقو أين بيقادن دونان سؤال بمركة إلهي نويدينيا ولما أنت قالوا دي إلهي ويدينيا بين آدمي وانكو أبوري قائم كي يتشوكي وقوع عنانا وانكو سيي قالم إيا سيدا وحلو قرانا وانكو بري قرشا إيا أقونا وانكو سيي anigaa ku arsaaqa waxaad u baahantoo dhan anigaad iga rabtaa haddana kayrkay baad caabudaa waad igu kufriday su'aaliga jawaab famaa yukadibuka maxaa kugu ikraahaya inaad beeniso bacdu intaasoo daliilo dabadeed biddiini in xisaabi dambayso maxaa kugu kalifaya inaad beeniso famaa sababtu maxay tahay yukadibuka kugu qasbaya inaad beeniso bacdu intaa aan kuu sheegay gadaasheed biddiini inaad aakhiro beeniso maxaa kugu kalifi doona hadhow ma cudurdaar baad heli doontaa alaysa allaahu ilaahay samiyaanu ahayn biaxkami alxaakimiina inta xukumta ee gar qaada ilaaha ugu caadilsan miyaanu ilaahay ahayn tabaaraka wa tacaala suuratu sharxi suuratu sharxi baa la yidhaahdaa suuraddan iyo suuradda ka dambaysa ee suuratu duxa isku mar bay soo degeen labaduba waxay ka warramayaan fadliga iyo yani maxaan ku rahaa sharafta nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi suuraddani waa maki iyaduna waana 8 aayadood alam nashrax waa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo qalbi qaboorjinaya oo laabtiisa in waasac laga dhigay iimaan waasacana la siiyey loo tilmaamaya alam nashrax nebigii allow heedhe miyaanaan waasicinin laka adiga sadraka laab aad iyo aad u qaad weyn miyaanaan ku siino waasaca wawadacnaa miyaanaan kaa ridin canka xaggaaga wisraka culayskii aadamaha fuuli lahaayoo dhan adiga miyaanaan kaa ilaalininba dunuubta bini'aadmiga qalbigooda madoobaysa ee dhabarka ka jebisa sawtaan adiga kaa saamaxnay maaha oo wax dembiyaba aanu kaa ilaalinay maaha ووضعنا وحانو كادجني او انو كابدبادني عنك حقاق وزرك عليسكي كفول لهابا الهي كاسمي كايلالي الذي عليسك سو انقض شبين لها ظهرك دبركاغا عليسكو اهان لها يو هدو حساب لغولا يمن لها صوت لغابا دايي ماها ورفعنا ميانان ضلعين وكريلين لك اديق ذكرك شيكشيغاغا marka magaca ilaahay la soo qaadaba miyaan adiga lagugu lamaanaynin miyaan magacaaga ilaahay sare u qaadin dikrigaaga iyo sheegsheegaaga imaam kasta oo khudbad akhriyaya markuu ilaahay xuso ilaahay nabigana uu ku xigsin muadin kasta markuu adimayo ashhadu an laa ilaaha illa allah haduu yidhaa ashhadu anna muxamadan rasuulullah buu odhan nin kastoo tukanaya markuu ataxiyaadsanayo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah warafacnaa miyaanaan kor yeelin laka adiga dikrika sheegsheegaaga iyadoo intaasoo dhan aad haysato adduunyadu haddana way dhib badan tahay iyadooy dhibaato tahay haddana farajkuunbaa ka badan fa inna maca alcusri mar kastoo kadeed yimaado waxaa la socda yusran dhib kasta oo adduunyadan aad aragto yusri baa ka dambeeya laguma waaro dhibaatada shalay bay abaar ahayd maantana waa barwaaqo meelaha laga leeyay war lagama cabaankani muxuu maanta yani muu inaga kawaawaadhiyo marka insaankaa sidiisaba iska dulqaad yar fa inna maca alcusri cusri kasta iyo dhibaato kasta yusri baa ka dambayn inna maca alcusri cusri kasta yusran dhibaata yani yusri baa ka dambayn oo waxa weeye yusri baa horeeya dhib baa yani ku xigta yusri baa ka dambeeya bayna alyusri cusrayni bayna alcusri yusrayni mar kasta oo dhibaata timaado horaysiya dambaysaba waxa fudayd baa kana horeeyey kana dambaynaya haddaba hadday sidaa tahay nebi moxamedow oo adduunyadu sideedaba ay iska cusri yusri isdaba guuraya ay tahay fa idaa faragta markaad ashqaasha adduunyada iyo dacwadda aad yani ka faaruqdo ee aad dhammayso fansab waxaa loo baahan yahay tacab kale laba tacab baa lagu abuuray tacabkan adduunyada iyo tacabkii aakhiro
markaad adduunyadii hawsheeda aad bogataba ee dacwadiyo diinta faafinteeda aad u baxdaba markaad haddana gaar noqoto tacab labaadoo kii aakhiro ah baa lagaa rabaa faidaa faraqta markaad hawshii adduunyada dhammayso sida dameerka intaad iska jiibsato uun ay maxaanku dhaa iyo sida maxaanku dhaa waraabaha tagoogta ha qaniinine fansab tacab iyo daal baa loo baahan yahay labaad oo kii aakhiro ah wa ilaa rabbika ilaahay uun farqab ididiiladaada ku xidh wa ilaa rabbika rabbigaana farqab ididiiladaada ilaahay ku xidho suuratu duxaa suuraddan suuratu duxaa baa la yidhaahdaa waxay tilmaamaysaa barqada oo wakhtiga cadceeddu intay soo baxdo waxoogaa ay yaro kululaato waana maki waana 11 aayadood waana ilaahay baa ugu maxaanku idhaha nebiyullaahi moxamed iyo fadliguu siiyey ku tilmaamaya waduxaa barqadaan ku dhaartay walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa sajaa ee ida ishtadda dalaamuhu marka madowgiisu aad iyo aad u sii adkaado sajaa ee ishtadda dalaamuhu marka madowga habeenku uu aad u adkaado baan ku dhaartay maa wadacaka kumuu sagootinin rabbuka rabbigaa kaama tegin oo kuma sagootinin wamaa qalaa kuumana cadhoonin oo muddo bil ah ayaa waxyigu ka kala go'ay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay gaaladii ku shimbira waaqoysalo tidhi alla jinkii u iman jiray ee wax u sheegi jiray wuu ka cadhoodo way iskaga tegey markaasaa ilaahay ku yidhi maa wadacaka kuma sagootinin oo rabbuka rabbigaa kaama tegin wamaa qalaa kuumana cadhoonin walal aakhiratu ta ku sugaysee dambaysee aakhiraba khayrun laka kaaga sii weliba qiimo badan min aluulaa adduunyada adigoo ah kii ugu sharafta badnaa aakhirana waad ka sidan doontaa walasawfa yucطiika sabanaan fogeyn baa ilaahay wax ku siin doonaa rabbuka rabbigaayo fatarda ilaahay wuu ku raalli gelin doonaa adig iyo ummaddaadaba wuu kugu raalli gelin doonaa alam yajidka aan ku weydiiyey rasuul allow sow ma dhicin wakhti ilaahay uu ku soo helay yatiiman adigoo agoona sow ma jirin oo fa'aawa oo cid ku magan gelisa oo aad u hoyata ilaahay sow kuma siin imisaa agoon dayacnaa agtaada oo aan ehel iyo qaraabo kafaalo qaadala ah adiguna markii aabbahaa dhintay ee hooyadaa dhimatay miyaan marba ilaahay cid ku kafaalo qaada uu gacanta kuu gelinin alam yajidka miyaanu ilaahay ku helin yatiiman adigoo agoona fa'aawa dabadeedna ilaahay sow kuma hoynin oo kuma magan gelin wawajadaka ilaahay sow kuma helin daallan maraad habowday sow ma jirin oo fahadaa ilaahay uu jidka cagta kuu saaray isagoo sabiyo hooyaroo 4 jira ayuu dhaqaaqay carruurtu markay yar tahay oo cagabaruurka tahayna had iyo jeer ma daasha oo iska socotaa wuu socday maka ninkii arkay baa arkay waa wada buuro buur kastana doox yar bay soo rogtaa gacannadii inbuu sii raacay wuuba dhamcay waa la baadi doonay maka oo dhan waa la soo waayey awowgii ayaa markaa gacanta ku hayo wuu ka soo quustay meeshaasna iyey iyo habar dugaag baa ku noolaan jiray waana ilmo yaroo sabiya dabadeedna waddadii ayuunbuu ilaahay cagta u saaray meel maka iyo guryihii ku soo bixinaysa halkii buu ku badbaaday alam yajidka wajadaka ilaahay wuxuu ku helay daallan adigoo habaabay oo sabiya fahadaa markaasuu ilaahay dowgii cagta kuu saaray gurigiina ku geynaysay wawajadaka wuxuu ilaahay ku helay caa'ilan adigoo caydhah oo aan iskana furin iskana faydin baa jirtay faaghnaa markaasuu ilaahay uunka kaa kaafiyey bini'aadmiga ilaahay waa kii kaa kaafiyey faamal haddaba hadday sidaa tahay ood agoonnimo soo martay oo aad faqri iyo gaajo soo aragtay oo aad rafaadkay leeyihiin aad ka marag tahay faamal yatiima sidaadaba agoon falaa taqhar agoon weligaa ha guulguulin agoon weligaa ha qasmin oo xoolihiisa ha ka qaadanin wa ama saa'ila nin gacanta ku hoos hoorsadayna oo ku su'aashayna falaa tanhar ha guulguulinoo mar dambe haygu soo noqon iyo caynkaa ha ku odhan hadal qalbigiisa dhiba ruux ku baryey isagaaba dullaysan inaad hadal wanaagsan ku dirta mooyaane miskiin baahan oo gacanta ku hoorsaday weligaa ha guulguulin falaa taqhar ha u xoog sheeganin waa yatiimka falaa tanhar ha guulguulin miskiinka wa amaa binicmati rabbika markuu ilaah deequ siiyana faxadid ha kaa muuqato nin baa masaajidka ugu soo galay nebiga markaas waxa dhar jeexjeexan buu xidhan yahay timihiisuna way raamaysan yihiin oo way basaasan yihiin markaasuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam
markaasuu ku yidhi sidan aad u dayacan tahay maal la'aan baa ku haysa iyo adduun la'aan markaasuu yidhi 4 maalin adduunyada waan camiranahay markaasuu yidhi haddaan maad maalkan ilaahay ku siiyey ha kaa muuqdee maad waxaan sidan aad tahay aad wax ka doorisid marka haddii ilaahay uu hanti ku siiyo hana ku kibrin oo waxaanad u baahnayn maxaan ku dhahaa la imanin wax indhuhu diidaanna dee ha isdullaynin amaa binicmati rabbika nicmada ilaahay miyaa faxadid ka qisood oo ha qarinin ilaahay deeqdiisa halkaa caawa ha inoogu jooga casharkeen